halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin Arbaca ah 20-ka bisha May sanadka 2020. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barkii duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa guryahooda ayaga oo jooga sababo la xiriira xanuunka COVID-19 idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada ka shaqeeya maqaayadaha Soomaalida ee Nairobi oo bilaabay inay adeegyada dadka ay u geeyaan guryaha sababo la xiriira coronavirus. dad badan oo xayiraad ku imaatay oo qurbo joog ah ayaa wax naga gato iyo dad badan oo adiga wadanka degan oo iskaabulada ah. qaar waa u geynaa mootooyin baa noo shaqeeya, delivery aan leenahay, waa u geynaa ilaa feeda cunto geynaa, waslaana geynaa. waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyaro dharkii ay ku ciidi lahaayeen u gaday ilaa iyo 60 caruur ah oo isugu jira agoon, da'yar iyo barakacyaal ku nool magaalada Boosaaso. qasiidooyinka Ramadaanka ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn. ciyaarihi qodobo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dhimashada uu sababay cudurka dhaliya coronavirus ee COVID-19 ee dalka Brazil ayaa gaartay 179 qof, iyadoo madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro uu labalaabay suurtagalnimada ku aadan in chloroquine ay dawo u tahay cudurkaas, xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in uu ka fakarayo in uu dalka Brazil ku soo rogo xayiraad dhinaca socdaalka ah. dhimashadii ugu badnayd ee lasoo wariyo ka hor midda 179 ee talaadadii lasoo wariyey ayaa waxa ay ahayd 881 qof oo May 12keeda lasoo wariyey, taasoo ka dhigtay in guud ahaanba wadanku idil ay cudurkaasi COVID-19 ugu dhintaan 17,970 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka Brazil. Brazil ayaa hadda waxa ay ka sarmartay dalka Britain oo noqotay isniintii dalka saddexaad ee ugu badan kiisaska coronavirus laga soo wariyey marka laga soo tago dalka Ruushka oo labaada iyo Mareykanka oo koowaad ah. Bolsonaro fikir ahaan isbahaysi la ah Trump ayaa waxaa lagu dhaleeceynayay qaabka uu ula tacaalay cudurkaasi wadanka Brazil, isagoo ka hor yimid in la xadido isu socodka dadka, taasoo uu ku sheegay in ay dhaawacayso dhaqaalaha wadankiisa. dowladaha Mareykanka iyo Canada ayaa waxa ay sheegeen talaadadii xalay in ay sii kordhin doonaan muddadii ay ugu talagaleen inay xirnaadaan xuduudaha tan iyo inta laga gaarayo 30 cisho soo socota, waxaana sidaasi ay sheegeen in loo sameynayo dagaalka lagula jiro xanuunka COVID-19. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Mareykanka iyo amniga ayaa waxa ay sheegtay in bishii March ee hore ay iyaduna sidaasi si la mid ah ay kordhisay muddada loogu talagalay in xuduudaha ay xirnaadaan ilaa iyo 22ka bishan, waxaana sidaasi ku raacay wadamada Canada iyo Mexico. waa arrin muhiim ah, go'aankeedana loo baahan yahay dalalku inay si taxadar leh uga feejignaadaan oo ay u hirgeliyaan. sidaas waxaa yiri ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau isagoo markaasi ka hadlayay heshiiska dhexmaray Mareykanka iyo Canada. ma aysan jirin ilaa iyo haatan dowladda Mexico wasaaraddeeda arrimaha dibadda hadal ay ka soo saartay. dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay talaadadii sidaasi si la mid ah in ay sii kordhin doonto muddada sababo la xiriira si markaasi loo xaqiijiyo faafitaanka in la yareeyo xanuunka COVID-19. warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. gudogalna qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayno. gabdho dhalinyaraha oo Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi ka bilaabay in cuntada guryahooda ugu geeyaan dadka ka soo dalbada kadib markii maqaayadihii ay ka shaqaynayeen ama ay ku lahaayeen xaafadda Islii magaalada Nairobi ay saameeyeen xayiraadda ay dowladdu ku soo rogtay si loo yareeyo faafitaanka coronavirus. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
makhaayadaha yaryar ee ay caanka ku tahay xaafadda islii ee ku yaala ilaa agagaarka jidka 12aad ee xaafadda islii ayaa ahaa kuwo ay ku tiirsanaayeen dad badan oo danyar ah kuwaasoo saacad kasta xilliga ay doonaan ka heli jiray cuntada ay u baahan yihiin. xilligan lagu jiro bisha ramadaan waxa ay ka mid tahay xilliyada loogu baahi badan yahay in la helo goobo lagu afuro ama laga suxurto. haddase xaafadda islii waxaa aad u adag in laga helo adeegyadaasi maadaama xilliga bandowga ay dowladdu soo rogtay uu bilaabanayo 7 fiidnimo kuna eg yahay 5 aroornimo. caasha caagane oo ka mid ah gabdhaha makhaayadaha raashinka lagu iibiyo ku haysta jidka 12aad ee xaafadda islii ee magaalada Nairobi ayaa ka hadlaysa dhibaatada ka dhalatay go'aanada looga hortegayo cudurka coronavirus ee ay dowladda Kenya ay dalkeeda ku soo rogtay kaasoo saameeyay shaqooyinkoodii. horta saameyn weyn ugu yeelatay oo saameyn aad u weyn cuntadii lagu cuni jiray miiska lagu diyaarin jiray ayaa gabigeeda waxaa lagu qaadayaa tag away. marka waxay noqonaysaa wax allaala wixii maqaayad lagu gadayay in lagu wada shubo weelashii loo diyaariyey tagawayga. marka waxay noqonaysaa shaqadii xilliga aan la bilaabi jirin kahor in la bilaabo oo time hore la soo galo shaqada. dhibaatadu way iska fara badan tahay laakiin alxamdulilah ilaahay noo nimceeyey maadaama hadda aan shaqaysanayno meel badan oo laga shaqaynayna jirto. saasay tahay waxaan hadda u furannahay waa macaamiisheenii. waad garan kartaa maqaayad haddii la xiro macaamiisha faraha ayay ka bixaysaa. marka saameynta ugu badan dalan haysato waxay tahay cuntadaas la xirxiraayo. sidoo kale waxaa saameyn kugu yeelan karo markii kastamkii uu ku imaado kaleeto qofkan wuxuu rabaa wax kaleeto qof kale wuxuu rabaa wax kale qof wuxuu rabaa nooc kale wixii in la diyaariyo rabtaa jikadii hal qofaa ku jiro. marka waa idhi badan tahay kastamkii qaar way cabaadayaan waxay leeyihiin anaga wixii aan dalbanan lama siinin. cuntadii waxaa laga yaabaa intii la diyaarinayay inay qabowdo. marka dadka ugu badan wax naga gatana waa dadka iskaabulada ah ee maadirtaan aan wax karsanin guryaha ku karsanin wiilasha iyo dumarka naftirkoodaba. marka macaamiisha ayaan u dadaalayna saas darteed ayaan maqaayada u furnay. dhibaatana way jirtaa warka waxaan leenahay ilaahay ha naga dulqaadato dhibaatada ma saaran. saameynta ugu badan tan haysata waxay tahay cuntadii diyaarinteedii sidii looga soo bixi lahaa. marka xilligan waxaad u bilowdeen bandowgii iyo waxbaad ka cararaysaan inaad ka hor diyaarisaan cuntada aad u weyn. soo hal saac waa kii habeenkii waa in hal saac gurigaaga joogtaa. haddaad hal saac gurigaaga joogin waa inaad isku baangeysaa wax walba la diyaariyaa banaanka la taagtaagay cuntada caagaday ku jirtaa qofku uu qaadanaya maqrib meesha lagu tago deeqa xuseen axmed oo sidoo kale iyaduna ka mid ah gabdhahan ayaa barnaamijkan u sheegtay inay aad hoos ugu dhaceen dadkii ka afuri jiray marka la barbar dhigo sannadihii hore. inkastoo gabdhahan marka ay cuntooyinka diyaariyaan ay gaarsiiyaan macaamiishooda oo ku kala sugan xaafadaha kala duwan ee magaalada Nairobi halkaasoo laga soo dalbado. suxuur ma sameeyo. dhibaatada ugu weyn oo isaamaysay oo bandowgana saameeyey waxaa ka mid ah suxuurta ma samayno. suxuur dhan ma samayno. awal suxuur baa nalaga cuni jiray waxaa nalaga cuni jiray afur cashaa nalaga cuni jiray waxyaabihii hararaan iska gadgadan jirnay ilaa 9 saacaan iska furnaan jirnay maqaayadda. marka hadda hoos u dhac weyn ayaa nagu yimaaday. alxamdulilah arrimaha allaha sahlo cudurkaana allaha naga kor qaadaan leeyahay. marka dadka ugu badan hadda waxa idinka iibsaday yaa u badan? wallaahi dadku waa isku jiraan dad badan oo xayiraad ku imaatay oo qurbo joog ah ayaa wax naga gato iyo dad badan oo adiga wadanka degan oo iskaabulada ah. qaar waa u geynaa mootooyin baa noo shaqeeya delivery aan leenahay waa u geynaa ilaa feedaan cunto geynaa waslaanaan geynaa meelo badanaan geynaa. go'aanada ay dowladda Kenya ku doonayso inay ku xakamayso cudurka coronavirus ayaa sidoo kale isbeddel ku keenay saacadihii ay gabdhahan shaqada soo gali jireen amaba ay bilaabi jireen. Faaduma Maxamed Nuur oo ka mid ah gabdhahan ayaa sheegtay in 9 subaxnimo maalin kasta ay shaqada bilaabaan si ay uga hortagaan in saacadaha bandowga uu saameeyo shaqooyinkooda macaamiishooduna ay u qanciyaan. shaqada awal waxaa soo gali jirnay 8 saac 9 saac hadeertaana waxaa la soo galaa 3 saac subaxnimo 2 saac la imaada. marka adii qaybtay qaabilsanta qaybtan shaqada yaryarka qabtaa tagaweygii waxaa xirxirnaa wax kale too yaryarkan waa la sii diyaariyaa. aad u maasan qadan. cabdikaafi xareed cali oo ka mid ah dhallinyarada ku nool xaafadda Islii ayaa ka mid ah dadka dareemaya xanimaada lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa suuqa Islii gaar ahaana dhanka makhaayadaha. run ahaantii saameyn weyn ayay ku yeelatay dhallinyarada iskaabulada ama dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ama xabarteen ama barnaamijyo kale u joogeen. markii la helay meelihii ay ka cuntayn jireen anaga khaasatan dhalinyarada waxayna saamaysay waxaanu ka cuntayn jirnay makhaayadaha
oo badanaa xaafadaha iyo wax iskamaanaan cuntayn jirin. Markii amar lagu soo rogay oo shaqdan wadankii la geliyey oo maqaayadihii la xiray oo la yidhi waxaa la ogolyahay only take away bas ah, waxay nagu yeelatay saameyn fara badan oo golalka ugu badan oo haysano haysta waxay tahay meelihii aan cuntooyinka ama waxyaalaha muhiimka u raadsan jirnay markii aan shaqo ama waxbarasho ka nimaano oo kaleeto. Saameyn noocaas ay nagu yeelatay. Dhinaca kaleeto qofkii wax baranaya oo kale dhalinyarada in badan waxbay bartaan oo jaamacadii waxaasay dhiganayeen, wadankii oo dhan baa la xiray, goobihii waxbarashada ama jaamacadihii ama iskuuladii dhammaan saameyno fara badan bay nagu yeelatay. xataa isu socodkii magaalada iyo goobihii kafeega ama xogta lagu wadaagi jiray. Soomaalidu badanaa meelaha shahay isku imaadaan oo aad ugu sheekaystaan oo siyaasad iyo ciyaaro. ganacsatada yaryar ee suuqa islii ee magaalada Nairobi ayaa mar uun maanka ku hayaya inay ka gudbaan xilligan adag ee lagu jiro, ayna dib ugu laabtaan sidii ay markii hore shaqooyinkoodu ahaan jireen. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. haatanna nala dhegaysta qasiidadan aan kugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan. محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة وابشي وعنيدو وابشي وعنيدو وانا ذا رسولكم warwarka adduunka lagu warimaaye wacdiga adkeeya warwarka adduunka lagu warimaaye wacdiga adkeeya محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة markana dhegaystayaal haddaan intaasi ku dhaafno qasiidadaasi ramadaanka ee aan idinkugu talagalnay wakhtigana boosaaso.
dhalinyaro iskood isu xilqaantay ayaa waxa ay ku dhowaad 60 caruur ah oo isugu jira danyar iyo barakacayaal ay u gadeen dhar islamarkaasina ay ku ciidayaan maalinta ciidulfitriga ee fooda nagu soo haysa. wariyaha VOA-da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa haddaba howlahaasi samafalka waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyaradaasi howlwadeenada ah. walaalle waxaan u samaynay dadkaas afurin baanu markii hore u samaynay waalidiintood, markii dambena waxaan u samaynay barnaamij iidsiin ah oo ilmo ka kooban 60 aan ugu talagalnay barnaamij iidsiina inay farxadda la qaybsadaan ilmayowga kale ee waalidiinta leh. waayahay tirada ay sheegtay waa 60 arday oo ka mid ah dadka danta yar ee ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo weliba agoonta ah. marka laga yimaado 18-taasaa samayseen, ujeedada ugu weyn aa ka lahedeen muxuu ahaa? ujeedkaan ka lahayn walaale wuxuu ahaa waxaan bixinay wax sadaqaa bay ahayd, wuxuuna ahaa dad waxaan ku sadaqaysana dad masaakiina oo yatiino agoona. ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa dee dadka ilmaha aabbaha leh oo sida maalinta iidday farxaya inay la ciidaan, inay la qaybsadaan farxadda ee aysan ahaan dad markaas fiiriya keliya dadka ciida. waxa wax lagu sadaqaysana waxaa ugu cajiibsan dadka masaakiinta oo aan awoodin, markaas waxay la farxaan dadka kaloo haysta iyo dadka masaakiinta oo agoonta u badan tahay oo iyaguna aan lahayn aabbee waxa weeye wax tara. maxay isugu jireen marka dadkaas waxay iskugu jireen wiilal iyo gabdho oo ilmo yaryaro wada saqiira bay wada ahaayeen. ilmuhu inta badan markii uusan qaangaarin buu wuxuu yahay ilmo aan la kafaalo qaaday oo ilmo yaroo yatiina yahay. marka gabdho iyo wiilal bay ahaayeen, gabdho u badan oo agoon, inta badan agoon ah, laakiin waxaa ku jiray dad kooban oo danyar oo markaana awoodin inay dadka iidda ay gataan. yaa bixinaya marka in ciyaalkaasi la ciidsiiyo? walaalle waxaa bixinayay dad muxsiniina oo dibadda jira iyo annaga oo ah dadkii hawsha fududaynayay qabanayay, inagoo maamulkii oo dhallinyaro ah oo waxa weeye runtii waxa weeye tabarucaadda iyo qaybtay qayb aan ka ahayn fududaynanayna dadkii markaa wax la soo baxay iyo annaga waxaanu bixinay iyo dhammaan isugeyn aanu ku taageeranay dadkaas. markaad iidsiiseen dhalinyaradan aadka u yaryar danta yar iyo agoonta isugu jira, ma lacag kaashaa siinayseen mise intaad suuqa geysaan baad dharka soo iibinayseen? arrintaas faahfaahin naga sii. walaalle dadka waxaanu siinaynay lacag ilmo walba in ku filan iidiisa baanu siinanay, surweel, kabo, shaati, ma garanaysaa wixii yaroo ku ciyaaro, adugu in ugu filan wax qofkiiba. waxaanu markaa inta badan dadku waxay dhahaan ilmaha ciid siin dharkiya, hadda dharka ilmo walba sayskiisana lama garanayo, waxa weeye suuqiina lama aadi karo. marka ilmo walba waxaan guddoonsiinanay wax isaga ku filan. islaamaamadii 2 ilmood leh ilmo walba lacagtiis, ilmihii 3 ka badan isagana sidoo kale, qof walba wax ku filan, wiilasha iyo gabdhaha qof walba wax gaara oo ku filan baanu siinayna. ciidsiintu waa markii ugu horreysay, waxaase ku horreysay barnaamij afurina aanu u samaynay 33 qoys oo ka mid a dadkaas agoonta iyo yatiinta masaakiinta iyo dariskii aagaas markaa ilmuhu wax ku baranaya agoontaa deganaa. barnaamijkaasna waxaan ugu talagalnay afurin in ay dadkaas waalidiinta oo qaybna masaakiinta tahay qaybna dumarka haysta ilmaha agoonka ay afur iskaga bixiyaan. ururkana waxaa la yidhaahdaa waa dad muxsiniin ah oo dalka dibadiisa tago isku tegey oo la yidhaahdo walaalaha samafalka waxaweye dacwatu ilallah iyo dhallinyarada ah waxaweye deegaanka oo aqoon-yahanka oo ka shaqaynaya barnaamijka waxaweye qayb libaaxle ka qaata. waayo tirada 60 arday ee dhallinyarada ah ee isugu jira agoonta iyo danta yar wiilashii gabdhaha ah sidee kusoo xusheen? ugu dambeyntii qaab noocay kusoo xusheen inaad ciidsiin u samaysaan? walaalle waa mahadsan tahay. dadku iyo dad markaa naloo tilmaamo lay reerkaas dabkaa ka seexsan waa dad dhigta madrasada, ilmihii agoonka iyo yatiinka ah ee dhiganaya madrasada. marka way noo fududahay oo dadkii hadda meesha dhiganaya dad aanu ognahay tabartooda iyo tayadooda weeye iyo tiradoodaba. dadkaas kooban oo waxa weeye saa'idka ku ahna waa dad dariska ah oo waxa weeye xaafadda ah iyo dad markaas baahidooda naloo soo sheegay oo aanu intaan soo qiimaynay aanu waxa weeye markaas listiga kusoo darsanay. waxaa jira dad badan oo danyar ah oo agoon ah barakaxyaal ah
ku dhaqan magaalada boosaaso qorshihiina maidin ku jiraa haddii barnaamijkiina maadaama sadaqa ku jiraan oo alla idii barakeeyo inaad sii gaarsiisaan dadka kale ee ku dhaqan magaalada boosaaso? walaalle horta waxaanu wadnaa waa barnaamij khayriya, waxaana xad bay leeyihiin, wax walba xad bay leeyihiin. waase awoodii intii aan awoodi karno oo reeraha aadka u liitoo kale ilmaha waxa weeye magaranaysa aan waxbarashadu intay waayeen dee aadka u liita. baahiyo badan way jiraan oo dadku dee waa wada baahan yihiin, laakiin dadka magaranaysa aadka u liita waxaan rajaynaynaa inaan waxa weeye aan markaanu soo xaqiijino aanu ku soo darno caawintoodana aanu ka qayb qaadano, waayo aad bay baahi ugu qabaan. dadka kaloo aan waxtaranayna la mid yihiin. kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf oo wareysanaya samafale cabdiraxmaan maxamed ismaaciil oo jooga boosaaso. markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab. aan ku bilowna xilli lagu wado inuu dib u furmo horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa la soo sheegayaa kiisas cusub oo hor leh oo xanuunka COVID-19 ah kadib markii baaritaan lagu sameeyay ciyaartoyda iyo shaqaalaha horyaalka Premier League ee kubadda cagta. maamulka Premier League ayaa xaqiijiyay 6 kiis oo cusub oo COVID-19 ah kaas oo laga helay ciyaartoy iyo shaqaale ka tirsan horyaalkaasi. dadka laga helay xanuunka ayaa waxaa ku jira tababara ku-xigeenka kooxda Burnley Alan Wood kaas oo markii baaritaan lagu sameeyay noqday positive. sidoo kale hal ciyaartoy iyo 2 shaqaale oo ka tirsan kooxda Watford ayaa ka mid noqday dadkii laga helay xanuunka COVID-19, laakiin kooxda Watford ayaa ka gaabsatay inay sheegaan magacyada shakhsiyaadka laga helay xanuunkaasi. kabtanka kooxda Watford Troy Deeney ayaa iska diiday inuu soo xaadiro tababarka kadib markii shaqaale iyo ciyaartoy ka mid ah laga helay kooxdiisa. Deeney ayaa kula tacaalaya wiilkiisa oo xanuunsan gurigiisa, waxaana uu sheegay inuu ka fikirayo inuu dib ugu soo laabto tababarka tan iyo inta xaaladda ay si kale isu rogayso. horyaalka Premier League ayaa la joojiyay horaantii bishii March ee aynu ka soo gudubnay kadib markii dalkaasi uu si xun ugu faafay xanuunka COVID-19. Ingiriiska ayaa ka mid noqday dalalka ku yaala Yurub ee sida xun uu ugu faafay xanuunka COVID-19. xaalad la sheegay inay ka soo reynayso ayaa keenaysa in lagu fikiro inuu dib u furmo horyaalka, laakiin maamulka Premier League ayaa ka fikiraya xaaladda sida ay noqon doonto. kiisas cusub oo hor leh oo la helo ayaa keeni karta in gabi ahaan laga laabto go'aankii ahaa in dib loo furo horyaalka Premier League. kooxaha Ingiriiska oo hadda tababarka bilaabay ayaa kulamada marka ay dib u furmaan waxa ay ku ciyaari doonaan garoomo cidlo ah oo taageerayaal aysan soo xaadiri doonin. dhinaca kale kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ayaa ku dagaalamaya saxiixa ciyaaryahan Haaland kaas oo u ciyaara kooxda Borussia Dortmund wacdarana ka dhigaya qaaradda Yurub. Haaland ayaa 41 gool u dhaliyay labadiisa kooxood ee u kala ciyaaray sanadkan, kuwaasi oo kala ah RB Leipzig iyo Borussia Dortmund. digan ayaa si weyn u soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn ee caalamka, waxaana hadda si weyn ugu loolamaya saxiixiisa kooxaha Paris iyo Real Madrid, lamana oga sida ay ku heri doonaan. dhinaca kale tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ciirsanaya xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda AC Milan ee kubadda cagta iyo xulka Algeria Ismail bin Nasir, kaas oo waqti wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa. Guardiola oo doonaya bedelka mustaqbalka waqtiga dheer ee David Silva oo la filayo in xagaagan uu ka tago kooxdiisa ayaa u arka bin Nasir midka kaliya ee buuxin kara booskaasi. David Silva ayaa ka mid ahaa xidigaha koobabka badan kula guuleystay kooxda Manchester City, isla markaana isku qoray taariikhda kooxdaasi. Pep Guardiola ayaa waxaa markaasi uu doonayaa in kooxda AC Milan uu kala soo wareego xidigan oo loo arko inuu yahay midka ugu muhiimsan kooxdaasi. Ivan Gazidi oo ah madaxa kooxda AC Milan ayaa looga fadhiyaa inuu iska caabiyo lacagaha faraha badan ee ay ku soo farraqi doonaan maalqabeennada Carbeed ee iska leh kooxda Manchester City. bin Nasir ayaa soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub kadib markii uu si weyn isugu muujiyey koobkii ugu dambeeyay ee qaramada Afrika ee lagu qabtay dalka Masar. wararkeennii cayaarahana waa naga intaa.
mahadsanid cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo ciyaarayeen la socodsiinayey. markana kusoo dhawaada dhinaciiyo qasiidooyinka. nebigana la xulay qof la siman ib muujiqin eedaynayo maqal sidoo sugan nebigana la xulay qof la siman ib muujiqin aniguna aqoontay shan kastoon abaabulo afur mooye daahoob unki maayo weedhaan sharaftaa ku ooge eraykee u mudanoon mukhtaar kugu ammaana ya nuura lablaj ya bahaw labhaj mahma qaala acwaj wallahi anta khayru khalqi llahi ajmac nuura lablaj ya bahaw labhaj mahma qaala acwaj wallahi anta khayru khalqi llahi ajmac. guud ahaana qasiidadaasi ayaa waxay ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. tan iyo galabta intaanu mar kale hawada ku kulmi doono waa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah saare cabdi axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.